معناها واحد لهذا هي دولان قبيل لقو قادا هي دفك دولية دجال قبيل لقو قادا وابل أركابا وموقتابا مدة كله waxa kan dawlad ku sheega oo dawlad baan nahay sida Puntland ama sida Hargeysa muxuu ahaa Somaliland waxa dawladda ma noqonayaan dawladna ma aha adduunkuna ma aqoonsanayo adduunku wuxuu yaqaanaa Soomaaliya uu yaqaanaa marka wixii Soomaaliya ka duwan cid la timaad cid aqoonsanaysa iyo cid ay macna ugu fadhidaan matala markii la yiraaho dhulka isaaq dago waa Hargeysa iyo Berbera iyo Burco dhulkay degaan degmo kale oo qolo kale degto laascaana kuma darsan karaan waa la ogyahay wax dagaaldarood inay yihiin waxa weeye marka arrimahan Soomaaliya wali qabiil bay ku jirtaa arrimaheedu waa arrimo qabiil dagaaladeedu waa dagaal qabiil waad aragteen diintii islaamka xataa say u galeen waad aragteen dadka ka dhaxaysay badii Soomaaliya ka dhaxaysay waad arkaysan qaar kuwa baarlamaanka isu sharaxaya Soomaaliya isu sharaxaya waa kuwii badda gadanaya shaqamaantan Kenya ka gadanayay marka meeshan dawladu kama jirto ama ha ahaato xamar ama ha ahaato Boosaaso ama ha ahaato Hargeysa Soomaaliya qabiil bay u burbursantaa marka fool xumada ugu sii daran ugu sii waxaan saa ka dhigay waa qabiil ku duulaya waa jabhad inta la soo hubeeyay qabiil kale lagu duuliyo haddana waxa ku soo duulaya dhulkaas dhulbaantu dago ama daaroodku dago ama dhul isaaq laftiisu waxbu ka dagaa oo Soomaaliya dhul maba kala leh wasleex degantaa meesha la yiraaho Kismaayo waa nin isaaq waxa xukuma kuwa sheeganaya Kismaayana al-shabaab sheeganaya mid isaaq xukuma marka meesha tan Soomaali ma kala socona waana la yaqaan adduunka dhan uu og yahay kuwa marixaanaha ku nool Hargeysa Boosaaso kuwa ku nool Boosaaso kuwii u dhashay qaar baa Hargeysa ku nool war meesha tan qabiil dagaalka hal joojiyo anigu waxaan dadka ku waaninayaa oo waliba qolada cusub hadda inta ayaama nasatay wiilasheedii hadda u soo dirtay dagaalka laascaano iyo buuhood la u soo dirtay inta bariyanasteeno bariya yiraahan waxana la yiraahaa Somaliland sida isticmaalka yihiin oo kale isticmaalka magacyadiisa way hataa la soo baxayaan inay gartaan wax garadkoodu inay yihiin dadkaanu daaroodka dhulkooda degana waa dhulka ku hareeraysan laascaano ayaguna dhanka kale ka degaan waxa weeye dagaalka qabiilka ah wax garadka isaaq mutacalimiinta isaaq siyaasiyiinta isaaq dagaalka qabiilka ah oo riyaal gelinayo oo ama doorashadoodu kursiga ku xagsanayo waa inay ka baxaan waayahay hadii aan dhanka qabiilka xataa ka hadalno waxa jira maamulka Puntland la yiraahdo wuxuu la beel yahay ama la qabiil yahay arrimaha jira ee hadda aad ka hadlayso ayaga qudhoodu dhawaan maamulkaasi lagu soo dhawaaqay SSC la yiraahdo gobolka Soland isku magacaabay way qaadaceen waana diideen maamulkaas waxaan moodaa in ayaga qudhoodu madow dhex yaalo marka arrin qabiil hadii ay ahaan lahayd soo ayaga qudhoodu xogaa ma taabateen arrintaas soo lama dhigi karo waa arrin iska caadi ah arrin siyaasadeed way arrinta hadda halka ka alooso arrimahaas oo dhan waa arrimaha dadka aan wax garanayno ay danaynayaan weeye qolada Puntland la yiraahdo mana qaadici ka dhow xisbi ninkii doonaa sheegan kara xisbi waa caadi waana sheegan karaan ayaga naftoodu xisbi waa sheegan karaan laakiin ma sheegan karaan dawlad iyo xisbi waa kala duwan yihiin waa waxyaalo kala duwan xisbiga kan horay bay u ahaayeen u ahaa dhulbahanta xisbiga kan markoodii horeeto oo dalka la xoreynayay waa xisbigay ahaayeen dawlad markay dalka ka jiray waa xisbigay ahaayeen magacaan hore u soo jiraad leedahay SCC horay buu u sii jiray waliba ayaga gudabiirsay baa ku midaysnaa hadda gudabiirsay oo ninka kanu gooyay ayaa ka maqan waa xisbigii ay lahaan jireen saas iyo awgeed qolada tan Puntland la yiraaho midaan kuwa xoolaha dhoofsay mid kale nin ari uusan lahayn dhoofsaday oo lacagteedii kibishin ka qaadanaya carabka xirada waagaaray oo madaxweyne ku ah inuu arigaas mataqaanaa dhoofay uu kibishin ka qaato sida riyaale iyo sida midka Puntland xukuma iyo ma suuroobayso inuu maaragtay qabiilooyinkii madaxa isu wada geliyo oo qabiilka dhiigiisa ka faa'iideysto yaan dadka dhiigiisa laga faa'iideysan shacabka oo Soomaaliya shacabka yaan la isku laynin ciddii wax garanaysa waa inay arrinta ka hortimaadaa waayahay dagaalkani maalin dhaweeydu wuxuu ka dhacay magaalada Buuhoodle waxaana dagaalkaasi isugu hor yimid ciidamada Itoobiya iyo dadka deegaanka ee Buuhoodle u dhashay waxaad moodaa laftirkaas dagaalka inuu soo galeen ciidamada Itoobiya ayaga qudhoodu soo lama oran karo arrimo jira daraadeed bay dagaalka u yimaadeen maxaas u malaynaysaa arrinta sababtay arrintaas ayada Buuhoodle dagaal ka dhacay dawladda Itoobiya been waa loo sheegi karaa oo waa la oran karaa shabaab baa meeshan soo galay ayaguna hubsan waa soo gali karaan laakiin markay hubsadaan
والدولة وين وية برجع أفريقيا ودن دولة وين وية إثيوبيا صوماليا وقبيل السود اللي سواحد كذا ناين يسوع ما شرتوا يمراد كلا هذا هي واحدنا وهدي حاجات كذا إني حاجات سوا واجب قاء إن ترى هذا قبيل السود اللي واجب تاسع قاء واجب كمان أنا قبيل لك كلا صفته إن ده شعب الله يسوع أنا I'm not believing ما آمن سنة ما نبليف كريسني إثيوبيا إن حنا متقنا قبيل كصعدة أنت وحوش أي قبيل كلا كدوشو ما نسمين دونتو تاسع معناها هو أرن لقنا دعيو قلت دعي دراديس بيرتاس كل هذا هذا علي واحد خلط كل عيوية لكن خلط كوين وحوية الساق دو كدولو محوها دارود وكدولو دولبانت يراه دولبانت ما قاعد يسون صدارود هنا دو قاطو تاسع قلد وين نقونيسا waxayna noqon doontaa Hargeysa sida uu la doonayo ninka Hargeysa kursiga raba inuu xagsado hadduu kursiga waayo xamar oo kale ha noqoto asaga iyo Cumar Geela ku soo heshiiyay arintaas isaaq baan wadigahayaa inay ka fiirsadaan iskana eegaan waayahay markii aan halkaasi ka hadalno for example waxaad ka hadashay arinta Soolaan ama dadka dhulbaantaha la yiraahdo dadkaasi waxay ka tirsan yihiin dawladda Soomaaliland mas'uuliyiin badan bay ku leeyihiin dhanka Puntland marka loo kacana sidoo kale mas'uuliyiin badan bay ku leeyihiin marka maxaad kula talin lahayd mas'uuliyiintaas ay ku leeyihiin halkaas goboladaas ama Soomaaliland ama Puntland mas'uuliyiinta u joogta deegaankaasi maxaad kula talin lahayd ayaga oo arintani hadda ay saameysay ما بتشيلان واحد مسؤولها أما بوندلان يكوليهين أما سوماليلان يكوليهين كوا شيئاً هي ده كان مسؤولكم مثل ما بكرانه من أوجين ده مسؤول كأ واحد ده كان وقبيل وين أو دجان مركنين مسؤول أو مال أسوي واحد توضون تي واحد ده كهلي مسير كده كاس يدجان كوده ما بنتلكره mana ay soo dooran mid ay soo doorteen oo dhulka ama jooga Hargeysa ma jiro ama Boosaaso jooga ma jire midka ka madaxda miduu dantiisa inta u eegay asoo wax ku magacaabay ayaa jira saasaan arkaa waayahay maxaad isleedahay maamulka Riyaale ula jeeda gaar ayuu ka leeyahay arrimaha hadda ka soo cusboonaaday deegaankaasi ma waxaad isleedahay ula jeeda gaar oo asaga dan gaar wata ayuu ka leeyahay arintan ayada asaga kaligiisba maana asaga iyo inuu Cumar Geela ku soo tashaday markuu inuu Cumar Geela safarka ku maraayay iyo ku soo tashadeen inuu kursiga xagsado iyo inuu mataqaanaa ay dhibaato galiyo isaaq labadaas arrimood midkood weeye soo dan weyn buu kale kursiga ku xagsanayaaba oo wuxuu rabaa emergency weeye inuu yiraaho oo wuxuu rabaa hadduu waayo isaaq iyo daarooda madaxa iska shaday inay noqoto wuxuu ku waayay waayahay maxaad kula talin lahayd ayaga qudhoodo si arrintaani xal loogu helo maxaa tala ah oo kula talin lahayd baadoo ka faa'iideysanay barnaamijkan saxansaxo waraysiga maanta oo kula yeeshay kuwa weeye kuwaas maamulka dawladda Soomaaliland iyo shacabka dawladda Soomaaliland anigu shacabka weeye waxaan la hadlayaa dawlad meesha joogto aan la hadlayaa ma jirto shacabka waxa ku leeyahay shacabkeena dariska asdhasheen walaalaha tiin xididka tiin qaraabada tiin waxa isku tiin yaan madax la isku kiin yaan la isku kiin layn yaan la isku kiin dhibaatayn qolo kastaba ha taa dhinaca kale gudubisay baa in ka degan hala dirirna dhinaca kale daarood baa in ka degan hala dirirna dhibaatada intaad iska celin ka dhan waa inaad iska celisaan waa inaan layn khiyaanin oo khiyaana in ku dhicin oo layn kaga boodin dab holaacaya yaan layn kaga boodin saasan kula talinayaan ayaga qudhooda deegaanka aad ka hadlayso Soolaan wax tala ma kula talin lahayd barnaamijka waan kula talin lahayd waxaan leeyahay haddaan layn soo weerarin cidna ha weerarina haddii layn soo weeraro waxaad leedihiin ilaa Caabudwaaq ilaa Balanbal ilaa Gaalkacyo ilaa Boosaaso ilaa Garoowe daarood oo dhan baa diyaar ah inay difaacaan waana in layn difaaca haddii qabiil layn soo weeraro adinkuna qabiil cid aad u weerar ka dhan ma jirto saasan kula talinayaa sida kuwa kale baan ula taliyay guud ahaan Soomaali weyn ama dawladda ku meel gaarka ama qolooyinkan doorashada ku jiro baarlamaanka ama muranka dhex yaala dawladda ku meel gaarka ayaga qudhoodu maxaa tala ugu soo gudbin lahayd barnaamijkan saxansaxo waxaan uga soo gudbin lahaa dhibaatada Soomaaliya guud ahaan Allah ka qaado dhibaato uga weyn ma jirto kuwa ama baarlamaanka aad ku sheegayso ama kuwa dawladaha aad ku sheegayso dhibaato Soomaaliya uga weyn ma jiro Soomaaliya inay isu timaado oo ay wax qabsato ayaga ka hortaagan Ilaahay si uga galo oo ka wareejiyo si Soomaaliya isugu timaado waa mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Mr. Cabdi Xoosh Ashkir oo aan waraysi kula yeelanay magaalada London ee dalka Ingiriiska